munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay International Somali Award ayaa waxa lagu qabtay magaalada London iyadoo uu ujeedkeedu ahaa in abaalmarino lagu guddoonsiiyo dadka haldoorka u ah Soomaalida isla markaana si weyn uga dhex muuqday dadka qaar ee halkaas lagu magacaabayay oo abaalmarino lagu guddoonsiinayay ayaa waxa kamid ahaa Ustaas Axmed Naaji Sacad, Dr. Saxaawa Cabdi iyo Cabdi Maalig Muuse Coldoon. Munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay dadweynaha aad u fara badan oo ay ku jiraan Soomaali iyo ajaanib. mudanayaal marwooyin ku soo dhawaada abaalmarinta caalamiga ah ee Soomaaliyeed. abaalmarinta caalamiga ah ee Soomaaliyeed 2017 waa sanadkii labaad ee la qabto. waa xaflad sanadle ah isla markaana loogu talagalay in lagu qiro guulaha ay gaareen bulshada Soomaaliyeed meel walba ay adduunyada ka joogaan laguna dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed. I am very proud to announce Sport Person of the Year Mukhtar Ali to win this award, important award. This award has been won by Business of the Year is Has Petroleum. And the winner of the Outstanding Education Achievement Award is Ahmed Adam Roble. Moment of truth. The Outstanding Community Contribution Award goes to Abdi Malik Musa Aldon. Is he here? Hawa Abdi is a role model and mentor to so many Somali women out there. And what is amazing about this woman is that not only has she kept hope alive, is that she has helped create the next generation of Somali leaders. So it is a pleasure to honor Hawa Abdi with the Lifetime Achievement. I would like to please welcome Dr. Hawa Abdi's daughter, Daqa. shakhsiyaadka wadankooda wax u qabtay marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo especially inaan ka perform gareeyo sanadkii labaad waa opportunity weyn ay tahay magacayga waxa la yiraahdaa Mahdi Hussein Sharif Maxamed waxaan ahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Manchester Soomaaliya ugu horeeyay xildhibaan ka noqda runtii maanta waa markii ugu horeysay aan ka soo qayb galay xafladda International Somali Awards dareenkaygu waxa weeyaan aad iyo aad buu fiican yahay magacayga waa Daahir Cali Kulmiye waxaan u shaqeeyaa ururka Alpha Trust Germanka waxaan halkan ugu mahadcelinayaa caawa Somali Awardkii ka dhacay in dadkii markina ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh ay ku guuleysteen dadkii ku guuleystay waa dad muwaadiniin ah ama shaqada ay qabteen waa ku faraxsanahay abaalmarinta iyo runtii dhiirigelinta shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee wax ka qabtay dalka iyo nafsadooda intaba waxaana runtii ahayd munaasabad dhiirigelin leh aad si weyn u dhacday Yusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed bartamaha magaalada London.